madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo maalmahan dambe sadcaal ku gala bixinaya gobolada bariga Soomaaliland ayaa saaka abbaara 9:15 subaxnimo soo gaaray degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa halkaasi waxa si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda kala duwan ee heer gobol, maamulka degmada, cuqaal culimaa u diin, shacab weynaha reer Garadag iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan kuwaas oo ku labisnaa calanka Somaliland ruuxayna caleemo qoyan iyo hadallo ay ku taageerayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. Intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa loo galbiyay dhinaca fagaaraha qayriyada geedka nabadda. Ugu horeyntiina waxa halkaasi hadallo soo dhaweyna ka yiri maayirka degmada Garadag mudane Faarax Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka iyo kuwa degmada. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhinaca kale ayaa iyana waxa hadalka qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii la socotay wafdida madaxweynaha iyo xubno ka tirsan raxantii wasiirada ahayd ee galbinaysay madaxweynaha Somaliland. barakacayaal fara badan oo dadkii ku caynoobay abaartii saxiib tobanka toddobaadkii ayaa ku soo kordhay oo ka badan dadkii xareer u deganaa magaalada qaar badan hadda soo marnay. gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugana mahad celiyay dadweynaha Garadag soo dhaweyntii u sameeyeen isagoo oo sheegayna inuu horumar badan gaarsiin doono gobolka Sanaag. waxaana hadalladiisu u dhignaayeen sida tan سوق موضوع الرولية عصير فيه دمر فاضح وصوب حضير ونقصد الويسان وين كما عدم ونستغفر الله خير ولغا yaabo dad waaweyn maanta oo ama shaqeeya ama xaaskila ama jooga inta ay noolaayeenba geedkan geedkan lagu soo dhaweeyay بس عبد الواحد السوي يعني كان قاعد الواحد السوي ده محمد هذه سوي ما تشوف سماها بس وليتها سوى الواحد فهي كان شيء يقول إذا كان الواقع لكن صدق بلد يقول وتوقع القرآن كان عدى شيخ لعدة الواقع
يلا لا بشر العاد كنا يقول قريب يعني الشيخ يلا لا بشر إن شاء الله وحطيت عملك نواحي لسه ولا لما أربعة هدي غير معانا يا رجل قارن كل ده شفتها وين أرجع بيها عند عندك الوصول وين مليانة يوصل الحياة وذكر الدين عدو بهاي الدين اللي جاي لما يطلع هو شفتها يا عبد الله يرحمه كيف يدور يحيي عارف كل سنة وحول صار مسائل بيها وصل صار لكن يحول أسر إن بدن باع الربوسرين دبيس الدين بدن باع اللي يتحمل عليه حتى لو يريد يبقى عنده الحسنة يروح ذاك يروح بالسوق يسرع والله العلبة والقولي ومن المفروض تخل 10 ملايين كل شفار كل سرعين كل مسكولون كل سرعين كل وضوء ما مسكولون كل سرعين علبة بقلنا علبة شخصيا يريد يبقى معاه غير كذا مرة الله بلغ قضاء حلوات يبقى معاه يدير شعور وقرا يا أبو الله لكن وحنا لا عندي ساعة شيء على نقول بيساعد يعني نقول أحضر له بيو كراي لكن بيو معنا كتير الله هو بيوصل سيرة وحنا نقول سنة وحنا كونوا اللي بدوا البيو حق عشرة تختار شيء لما تختار اسمه ما رجال تقول يخرب في عن وحكي له مسترين رجاله يلا أسعاره إن كل يوم كان تقول سوق جالسين وحكوا كأنت لما تختار يقول أولين تلك إن بدل بعد قلبه دوسي سويه كده يلا أسعاره بيو رجاله خلق فوق يوم دون أي كلا عرفها ليش تبغى نكون سوا لا نكر لي عرفها لكن وين هرب ما يبغى نقوم بفكرة وروح الأول المدينة لكن ما يشوف فرحات عبد النور تلفزيون كعالمي هون كيبل تي في تجمع ذكر هذا